السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشر كيني بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا وإياه في جناته. حلي شيخ باب صلاة المسافر والمريض. وحباب يهي صلاة قفك مسافر كاه يقفك حنوسنا يا صلاة ديسا شلي بينه حكت المبني قالك الشيخ وحكا ورمي دونا qaabka uu tukadayo ama ahkaamta loo jideeyay qofka safarka ku jira iyo qofka xanuunsanaya. labadoodaba waxa ku yimid shay naftooda culays ku ah. haday safarka noqoto waa inuu tilmaamnay inuu yahay qat'atun min al-'adab iyo maradkiyo xanuun ah. haddaba masaa'il dhowr ayaa ku jira. shalayna waynu yara ishaaray intaynan xadiista gudagelin dhowr mas'alo ayaa jirta. masalada koowaad mashruuciyada safarku ee salaada safarka oo in ahkaamteedu isbedelayso adilla badan baa tilmaamtay. ahkaamta isbedelaysa waxa kamid ah salaadii rubaaciga ahayd in la gaabinayo. صلاة رباعي قاهد إلا قابلنا يوم. الله سبحانه وتعالى وحولي وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كركينا ما أهانين وحدن بيئة إلى الصلاة قابسان إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. مركا حالة الخوف بلا شرعية، لكن حكم كاسي باقي وهي الخوف كي وسولي أيها هذا حكم كاسي باقي يعني. مركا هيدا سواحي تلمامتي وإنوشي ديسي إنو بنانتهي صلاة إنو قابلنا حالة السفر مركا إنو نهي مركا حكم ككوات waxa la gaabinayaana waa salaadii rubaaciyaadka laba laga dhigayo. taadaba culimadu waa isku khilaafeen. shalayna waynu shaaray oo in la gaabiyo marka safarka lagu jiro iyo in la dhamaystiro waxay isku khilaafeen mar rukhsa mise waa azima. rukhsa iyo azima maxay kala tahay؟ والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيامة علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. رخصة وحلا هذا ما ثبت على خلاف دليل شرعي. أحكو السقناضي دليل شرعي ياسي خلاف صن السقناضي. وصلاة دوا على يقان أفرق عدد اللي تكذا ظهركي. مركز رخصة درادت لبرك عدد لو غدي. عزيمتنا والحكم الثابت بدليل شرعي خال من المعارضة. وحكم السجن وكسجن هذا دليل شرعي أو كمرا معارض راجحة كمرا. هذا ما خلاف كذا كسك باللامي. إن حكمت لقاطه سفرك يا صومك waxa weeye salaada oo tar salaad soo koo laga tago oo dib laga soo qadeeyo haday tahay salaad la gaabiyo. jamaahiru ahli ilm waxay ku tageen inay ruqsad tahay. daliilkooduna waa xadiista iman doontay aayada lafteeda korkiina dambi ma saara laga cabiray. marka waxa laga qaadanayaa in waxa weeyaan asalkiina la iman karo sidan asalkii khilaafsan dad la timaadaan baan korkiina dambi saarnay buu macnuhu noqonaya.
xanafiyada iyo daahiriyadu iyo waxay ku tageen inay casiimo tahay oo in la yimaado ay waajib tahay culimada qaarkood waa ku mubaalaqoodana waxay yiraahdeen mashruucaba noqon mayso safar isagoo ku jira inuu salaadii dhammaystiro taasi waa mas'alada xigtee taa la xiriirta waxa weeye muddo safarka intee la eg marka la socdo ayaa safarka xad ma leeyahay haddii si kala wadhigno xad ma leeyahay safarku xad ma leeyahay bimacnaa marka masaafo intaa la eg meel gaadhaysa uu u sadcaalo ayuu xukunkii qaadanaya hadduu ka sokeeyana ma qaadanayo taana waa isku khilaafeen khilaaf weliba aad u badan laakiin laba qowlo ra'iisi ay leedahay oo xad ma laha oo curfigaa loo celinaya عرفك أي العلمية سببتها الإباحة في أحكام السفر جاء في الشرع غير محدد سواء محدد أو مشرع كويم سادرات الحدين ما إن عرفك العلمية يعلم ما يوا وإن حد يشايو وحيو بدين جماهيرته أي بدينه وقولك الجماهيرته يغلفتوا ذا waxay u badan yihiin inuu 4 burid inuu yahay masaafaad uu gaaraysa ilaa 80 kilomitir gaaraysa 80 kilomitir masaafo gaaraysa marka uu qofku meel inta leeg u sadcaalo ayuu ahkaamtan qaadanaya haday ka hooseyso ilaahu sharci sabab ku maqnaado musaafir ma ah حكي كقاتين حديث ضعيف إياه فعل كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسوى مسألة كلا أي يدور حرير له قرنا يبقى وحو الصعودة بقول كيلومتر ميل لا صعود قارما أي أحكامتي بالله بيا هل كانت كبحضي وحدون يسا بعد صلاة الظهر مباشرة إلى سفرته صلاة الظهر باكو سوق شيء ما لبا تكنيسا مسافر با تكنيسا اللي ولي حاب مقالة هذه كما دقاقيني مسا حكم كا واحد قادنيسا اون marka aad magaalada ka dhamaato guriyihii iyo dhismayaashii aad daba marto halkaana way isku khilaafeen waynu ishaarayna in masaa'isha ku jirta waa maadaama khilaaf fiqi ay hore u sii dhaxgali mayno waxa kale culimadu isweydiiyaan qofku waa uu safrayba muddo intee leeg buu safarkaas uu ku dhex jiro oo gaabinaya hadduu safarkiisu sanad ba qaato sanadkaaba miyuu gaabinaya taana culimadu laba dhinac bay ka eegeen qolo waxay yidhaahdeen laba u kala qaad inuu go'aansado inuu joogayo iyo inuu laalan yahay laalan maxaynu uga jeednaa hawl buu yimid oo garan maayo hawsha goortay u dhamaanayso laakiin waxa uu go'aana maalinta hawshaasi u dhamaato inuu iska noqdo ama uu go'aansado wuxuu hawshani alla ilaahay hawshani bil baabay u qaadanaysaaba marka bishaas inuu joogayo waa go'aansaday xaaladda noocaas taasna waa suurad weeyaan suurada hore ee marka uu laalan yahay aqwaasha ahlul cilmiga badankoodu xukunkii safarka inuu qaadanayay ku tageen aqwaal kale sida khilaafsan oo 18 cishay 19 cishay waxyaabahaas iyagoo xadiista daahirkooda iyo ficilka nabiga ka qaadanaya waa jiraan suurada labaadna waxay leeyahay 4 cisho wixii ka yar haddii uu waxa weeyaan go'aansado 3 cisho inuu meesha joogay 3 cisho uu gaabinaya hadday 4 cisho fama akthar noqotana uu dhamaystiraya haddaba masaladan waxay u badan tahay uun ficilka nabigana bay u badan tahay ficilka nabigana taxdiid laga qaadan maayo waa ittifaaqan oo nabigu halkan inuu muddadan joogay muddadaana uu gaabiyay yaa ku sheegay hadduu muddada ka badan joogi lahaa inaanu gaabin lahayn ma jirto waa shay ittifaaq oo muddadaas mu joogay mar haddaan nas qawliya oo nabigu ku cadeeyay calayhi salaatu wasalaam ama ficilkiisii intay muddadii dhaaftay aanu muddadii markay dhaaftay 4 cishadeedna aanu sii wadan ama aanu joojin qasrigii waxa weey inta hadaan la helin waxa iska noqonaysaa waa iska ijtihaad marka masalada safarku mas'ala ijtihaadad aad ugu badan yahay hadalkeedu aad isaga badan yahay
masaladan hore goormuu gudagelayaa iyada raajixa waxa weeye ama qowlka murajaxa noqon karaya xagga adilada marka la eego in qofku haddii uu muqadimaatu safarkii gudagalo inuu axkaamtii qaadanayo tigirhkii buu soo goostayba tigirhkii ayuu soo goostay waxaaba la yidhi wuxuu baxayaa basku kowdana wax u diidaya isagu ma jiro kowda waa diyaar xukunkii inuu qaadanayo ama garoonkiibaa buu joogaaba diyaaraddiina waa sugayaa inuu xukunkii qaadanayo laakiin qof aan muqadimaatu safarkii gudagelin isagu xukunkaa safarka ma qaadanayo aduu masaa'ishaasaa ugu yaro muuqasho badan masalada labaad ee safarka ku saabsan waxa weeye waa jamciga in salaadihii la jamciyo jamcigu markaa waa mashruuc sida jamaahiiru ahlilcilmi ay ku tageen jamcigu waa mashruuc adilo fara badan baana tilmaamtay xanafiyadu iyagu waa diideen jamac inuu mashruuc yahay marka laga reebo jamaca nusuga ah nusuga maxaa looga jeedaa maalinta carafa la joogo duhurka iyo casarka waa la jamciyaa habeenka musdalifo la joogana cishaha iyo maqribka waa la jamciyaa waa liajli nusuki bayaan liajli safari maaha safar waxba laguma jamciyo laba saacadood lama jamcin karo laakiin qowlkoodu waa daciif qowlka labaad wuxuu odhanayaa jamcu taakhiirka mashruuca laakiin jamcu taqdiimku isagu mashruuc maaha laakiin qowlka raajixa waxa weeye labaduba inay mashruuc yihiin adiladana way ka caddahay ahlulcilmina waa ku tegeen haddaynu haddaba intaa ku yara khulaasaynay axkaamta ugu muuqashada yaro badan bal aynu iska gudagalno axaadiista akhrintooda can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga wariyey qaalat inay tidhi أول ما كي يقول فرضت الصلاة صلاة لفرل يعني ركعتين لما ركعتين بوها فأقرت والله قري والله الصغيده صلاة السفر صلاة السفر كا لما دي ركعتين بالله الصغي وأتمت والله لما يستري صلاة الحضر حضر كإيو نجاشها صلاة دينا والله لما يستري متفق عليه بخاري مسلم ما يسكوا وافقه وللبخاري بخاري وحوس نادي ثم هاجر نبي واهج روديو مدينو سو هجرودو ففرضت ولا فرل يعني 4 با laga dhigay salaadihi wa uqirrat salatu safari salaadi safarna waxa lagu sugay ala al-awwali ay ala al-amr al-awwali arinkii hore زاد أحمد باكردي إلى المغرب مغرب موياني فإنها مغرب وتر النهار ماليته وترتدي وي وإلا الصبح صلاة الصبح موي فإنها يدم حاية تطول ويديراتا فيها كلها دوال ديريا أما تطول ويديراتا القراءة لقراءة ديراتا فيها قديدة حديث كان وحديث كان هو الرئي تلمامة مشروعية صلاة إلا قصرية رباعي حديث كان وحد تلمامة حديث عائشة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إسراء والمعراج مركي سمد الكرسية ربي ولا كل مي أيها الأقصى فرلي يعني صلاة كنت صلاة مركي ورين اللي قلت تكذها بينك يا معلنتي كنت صلاة تلمت تكون كان لهين الله المستعان كنت صلاة إنها بينك يا معلنتي اللي تكذها لصوفر اللي يعني كدبنا نبي موسى نبي صامر عليه الصلاة والسلام وحكول ومدى كريم يسين إلهي كنا قاء يجا خفيفين السيد لو جا خفيفين يبقى شن لو سوق أوروري لكن حاجة أجر كنت لا أجر مركشان تصلاة حاجة عدد كنا وشن شن وقت لا تكدو حاجة أجر كنا توما بالغ رفطايا كنت بين لا أجر تاعي هذا الصلاة دي الصوفر اللي يلي وحي أهيد لا برك عدد إلا تكدو لا برك عدد إلا تكدو ظهر إيه عصر إيه عشاء إيه الصبح إلا ولا بركة عود للتكدو مغرب كان سدح للتكدو سيدا سانا النبي صلى الله عليه وسلم مركي وما كسو النقضي ومعراج إسرائيل كسو النقضي لبا سال للتكني رواية اللباد البخاري ثم هاجر وحي وسؤالورين وعدايو إلا أنت ما كلت شوقي مال أنت إسرائيل وحي كدن بين لبا بركة عود بال للتكني markii laakiin soo hijrooday nabigu Madiina soo hijrooday ayaa afar laga dhigay saddex salaadood maqribkiina waxa la cishay salaad subaxna sideedii baa loo daayay maqribkiina sidiisii baa loo daayay labadii ragcadood marka waxay baaqi ku noqotay salaada safarka
marka safar haddaad gelayso laba ragcadood baa kuu mashruuca haddaad safar aad nag tahayna afar baad tukanaysaa marka salaada subax laga reebo waa iyada qiraa'ada la dheereeya oo meeshii labadii kale qiraa'a loogu bedelaayo quraanka Allah akhriya la dheereeya maghribkana sidiisii baa loo daayo waa witru nahaari xadiiskani waa xadiiska ay daliishadaan culimada le mashruucba ma aha marka safar lagu jiro in salaada la dhameystiro وجه الدلالة سو دلالة يا نور الدين طيب حسن هذا هو أحسنت حديثكم عليه هاي وحي لفر لي هرت لبا ركعات باي هيد سفر يا غير سفر اما سفر كجر اما نغو لبا ركعات باي هيد بس markaad nagtahay baa lagu afar ka dhig tii kale marka mashruuceedu muxuu noqonayaa labada marka cawdas waxay mashruucba ma aha in la dhameystiro oo safar ku jira salaad dhameystirta salaad mashruuca lama baad imaamba laakiin de xadiista kale marka la eego qowlkaasi waxa weeye waa qowl laga raajixsan yahay oo waxa weeye waa la gaabin karaa waxa la dhameystiri karaya laakiin waxa afdal ah نبينا صلى الله عليه وسلم كما سجنا سيد ابن القيم وتلمامه كله مرنا كما سجنا النبي يسوع سفر قالي إنه صلاة لما يستري مرنا كما سجنا وتسوق وين ما قف إنه كتجمع معها إلا وحوي دي حالات نادرة أما وحلم إذا يضو لأوجي هاي هديلا لما يستري أنا أصل كوي هاي أي باقي تا وحوي قف كأنه قدام بابين وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان وحوها ويتني يقصر مد قابية صلاة في السفر كدحدي سوى ويتم مرنا لما يسترى ويصوم مد صومها ويفطر أفرا رواه الدار قطني باوري هو رواته روادي سنة ثقات وإلا أنه حديث كان معلول أمد لعليوي والمحفوظ كان محفوظ سغن عن عائشة رضي الله عنها ومن فعلها فعل كذا وقالت وحيتلم إنه إساو لا يشق علي إمد بيو waxa weeyaan iska sooma safarka ima dhibayo akhrajahu al-bayhaqi ba soo saaray xadiiskan riwaayada hore Aisha xadiis ana saxiin sida imaam xaafidku baa uu ishaaray Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah waa ku tashaddud wuxuu xadiisku waa kadib waa been hal nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis sugan ma aha wuxuu tilmaamayaa nabigu inuu safarka markuu ku jiro marna uu dhameystiri jiray marna oo waxa weeye gaabin jiray marna weed maxaynu sheegnay inuu nabiga marnaba ka sugnaanin inuu safar salaad ku dhameystiray isagoo safar ku jira marka xadiiskan xadiis sugan ma aha laakiin shayga maxfuudka sugan waa Aisha inay sidaa sameyn jirtay marka xadiiskan hadduu ansixi lahaa aqoolada madhabka jamaahiirtu daliil u noqon lahaa oo ah in markaad safar ku jirto aad waxa weeyaan aad salaada dhameystiri karayso ama aad gaabin karto وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له وحيدي إن الله ألا يحب وجعلي أن تؤتى إن لي ما دار رخصه رخصته سإن لي ما دار وجعلي كما يكره سيده كراهي سنة أن تؤتى إن لي ما دار معصيته أما معصيته إن لي ما دار معصيتي سو استقل عاصي رواه أحمد وصححه وصحيح يعني ابن خزيمة وابن حبان وفي رواية وحا كسغنا كما يحب سيده وجعلي أن تؤتى عزائمه عزائم تسيي وحيابها وقويي حكم كيسو ثابت كيهاي دليل شرعي أنا كسغيهاي انت للي ما دو سيده وجعليهاي أي رخص كان وجعليهاي حديث كان يوحو دليلو يهاي قال دي دليلو يهاي قال دي وين نعم قالنا دليل بويا قالنا لا مشروع ما هنا دليل بويا labadaba daliil buu noqon karaa soo daliil lagu kala noqon karaa nuuradin qolada rukhas kale dawaa rukhsa lagu tilmaamay ma la rukhsa lagu tilmaamayna waxa weeye wuxuu daliil u yahay in la iman karo lagana tagi karayo sawaadix ma طيب qolada kale soo daliil ugu yahay ايش ما شاء الله وحال اسكو شبهي معاصين للي مادو
إن إلهي نعب يهي إيا إنو جعل يهي رخص كيسا إن للي مادو وأنا ليسكو تشبيهي مركا سيدا قف كان طاعدي وقتغي ومعصيه ولا يمد أيو كان طاعدي وقتغي oo la iman waayo wixii laga doonay marka sidaa daraadeed waa dambiba inaad dhamaystirto laakiin ala kulli qowlka inaga tilmaamno waa qowl laga qowsan yahay waa xadiiska laga qaadanaya ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu sifay karo in wax jeclaado mahabba sifatu al-mahabba wa sifay ilaahay leeyahay sifatu al-kurhi wa sifay ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala marka xadiisku sidaas labada madhab laakiin wuxuu ku muqashamay badan yahay madhabka oranaya waa ruqsa sidaa daraadeed haddii lala yimaadana oo la gaabiyana way ku bannaan tahay haddii la gaabiyana waxa weeye haddii la dhamaystirana way ku bannaan tahay laakiin waxaa fadli badan in ruqaska la qaato la gaabiyo maadaama ilaahay jecel yahay وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال وحده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحا إذا قلت خرج وبحو مسيرة 3 أميال صدح ميل مسيرة هدي وبحو أو فراسخة أما صدح فرسخ هدي وبحو صلى ركعتين لما ركعدود أي تكنين رواه مسلم أيا ولي وعنه أنس وحا لقوري قال إنه خرجنا ونبحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان شركيس من المدينة مدينة نكبحنا إلى مكة حق إذا نبحنا فكان وحوها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يصلي مت كذا ركعتين لما ركعت بوتكني حتى رجعنا إلا أن نصنقنا إلى المدينة مدينة نصنقنا متفق عليه بخاري مسلم بيسكوها فقه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري أقام النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوانا قاعدي 19 يوما كوبي تصدق عليه طبعا مع الموت يقصر حاله يا مد قابين في صلاة وفي لفظ كان بمكة أيان مدة أيان كسرين أما كنا قاعد أقام بمكة 19 سقالية يوما مع الموت رواه البخاري باوري وفي رواية لأبي داود وحكسرنا 17 تضبية طبعا وفي أخرى وحكسر 15 سنية طبعا وله وحكسرنا أبي داود وحكسرنا عن عمران بن حسين 18 سديدية طبعا وله وحوسقنا عن جابر وكورنا أقام بتبوك وكنا قادي 20 يوما لباتا مع الموت يقصر الصلاة حاله صلاة متقابنا ورواته رواديس ثقات وي إلا أنه هي شيء اختلف والسك خلافه في وصله حليل انتيسا هل كان مركا وحد المامية دور مسألة يصلح قليل مدة القصر دليل كلو دليل وحويا مسافة القصر ماشي لو دليل سدي حديث كان وحد المامي أنا سيهاري مسلم ورين أيوه هدي وبحو صدح ميل مسيرة ودقانتا هدي وبحو أما صدح فرسخ لبرهك عدود بوتوكان شري كو marka xadiiska waxa uu doqolo culimada qaar kood ba u daliishaday masaafatul qasrigu inuu intaa yahay laakiin xadiiska daliilku ma sugno waa ficilo inta ka yar hadii uu bixi lahaa aanu gaabin lahayn ama inta ka badan aanu gaabin lahayn waxa way midna kuma tusayo inta in ka badan daliil baa loo hayaa oo xadiista kale oo soo arooriyay baa tusaysa laakiin inta in ka yar inaanu haduu bixi lahaa aanu safri aanu noqon lahayn xukunka aanu gaabin lahayn ayuu waxa weeyaan xadiiska kama cadda waa ta kale arba'atu burud culimada ku tagay jamaahiirta yiri waxa weeyaan arba'a burud oo 8 kilomitir xadiiskani daw isna waa khilaafsan yahay oo 3 mayl waxa weeye waa wax 6 kilomitir ku dhow waa 6 kilomitir ku dhow weeye 3 mayl ama 3 farsakh صدح فرسخنا لحية 10 كيلومتر بين نقنيا أو صدح ذا فرسخي وحو نقنيا 9 ميل بو نقنيا يعني لحية 10 كيلومتر وحكدو أما كبضا إلا أدو أنت ودا حيصل لحية 10 إلا 7 تشديد ميلا أدو كسور براعية مرك أيا كانت هاي النقطة وحلي أنس النبي وحو عليه الصلاة والسلام مركا وبحوم مسيرة يميل الله صعود 3 ميل أما 3 فرسخ راوغا كشكيه وانا لبا مدو لبا مسافه لبدوبا ay kala badan yihiin صلى ركعتين لبا ركعdood buu tukanay رواه مسلم حديثك ka ku xiga isla masaladii kale uu tilmaamaya hadii uu muddo intee la eg
ayuu hadduu joogo beledka uu qasrinaya xukunka qaadanaya xadiiskan markaa Anas ee hore afwan xadiiska Anas wuxuu tilmaamayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu Madiina u safray Madiina ka safro Makka u safray kadibna intii uu safarka ku maqnaa oo laba ragcadood tukanay ilaa uu Madiina kaga soo noqday laba ragcadood buu tukanay marka taa waxa laga qaadanaya safar haddaad gasho safarkaas intuu doonaba ku jirtideen haddaad safarkii wali ku jirto niyatul iqaamana aadan la iman inaad nagaato dee wuxuu xadiisku daliil u yahay in aad xukunkii qasriga aad wadanayso ayuu daliil u yahay muddadu intay doontaba ha noqotee ibn Umar waxa laga sheegaa 6 bilood Azerbaijan meesha la yaado uu joogay 6 bilood inuu waxa weeye salaada u gaabinayay 6 bilood inuu gaabinayay ardayda imika jaamacadaha taga madhabka culimada qaarkood ay taqriiriyeen ee muddadu inaanay xad lahayn kamid marka loo eego tandiirkooda ee 4 sanadood jaacada dhiganaya waa inuu gaabiyaa sababtoo niyatul awda ku jirta laakiin culimada kale leh may hadii iqaama ay meesha soo gasho oo muddo xadaysan oo nagaanayo waa inuu waxa weeye salaadii u dhameystira ibn Uthaymeen wuxuu yiraahdaa ka tandiir sharci waa sax laakiin haddana de waxa weeye adkaanaysa laakiin qof inuu ku amal faro arrinka noocaas oo 4 sanadood 5 sanadood oo salaada gaabinayo isagoo caadi u nag xadiiska ibn Abbas iyo riwaayadkiisa kala duwan waxay tilmaamayaan nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu 19 cisho ku nagaa Makka uu ku nagaa 19 ka cishaba uu salaada uu gaabinayay nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam sidaaradeed waxay ku xambaaraan fuqahadu qaarkood waxay ku xambaaraan waxa weeyaan niyatu iqaaman jirin qaarna waxay ku xambaaraan may niyatu iqaama way jirtay oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu niyeystay inuu inta muddada joogo ala kulli hal waa ficil kan laga qaadan karo marka taxdiid laga qaadan karo sababtoo ah 19 buu nagaday ittifaaqan buu nagaa haduu soddon nagaan lahaa xukunku sameyn lahaa dalilno ma sheegay sida daraadii taxdiid laga qaadan karo ficilka riwaayadka khilaafsan riwaayadan hore Bukhari dayadu waxa weeye waxay cadeysay inay ahayd 19 cisho inay ahayd oo waliba riwaayada dambe ay sii cadeysay 19 cisho meesha uu joogay inay Makka ahayd riwaayada dambe ee Abi Daawud iyaduna waxay tilmaamtay 17 inay ahayd 17 cisho inay ahayd iyaduna waxa weeye waa riwaayo aan saxday ismana diidayaan labada raqam sayno hore u tilmaamnay hadii riwaayo ahaan aan saxday riwaayada dambe 15 ku iyadu waa daciif oo waa irsal mursal weeye riwaayada kale xadiiskan Imraan ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu ee 12 sanadood ee xalay 18 cisho iyadu waxa weeye waa daciif Ali ibn Zayd ibn Jud'aan ninkii la oran jiray baa ku jira xadiiska kale Jaabir isagu waxa weeye waa qiso kale oo Tabuk markii nabigu joogay kaleey salaatu wa salaam ee duulaankii Tabuk ugu baxay 20 cisho nabigu sallallahu alayhi wasallam halka uu joogay وعن أنس رضي الله تعالى عنه وحلق وريه إنه إليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على وحى إذا قرت ارتحل هو قورو قبل أن تزيغ الشمس قرحت انت انا الى اخر الظهر كايو دبديغي جيري الى وقت العصر صلاه عصر وقتيده ايو دبديغي جيري ثم نزل ودغ جيرو فجمع بينهما لبدوده وكل من جيري فان زاغت الشمس قرحت هدي الى قبل ان يرتحل انت ان غورين كهرنا صلى الظهر كنت كان جيري ثم ركب وفول جيري متفق عليه بخاري ومسلم باسكو وافقسن وفي روايه الحاكم حاكم روايته في 40 كتاب كيس 40 كوكوري بإسناد صحيح إسناد صحيحة وحكت عليه صلى الظهر ظهر كنت كان والعصر يا عصرك ثم ركب وفولي ولأبي نعيم وحوسقنا في مستخرج مسلم كتاب كيس وكو استخراج كسمي كان وحو رسولك صلى الله عليه وسلم إذا قرت كان في سفر وكل احتجاب فزالت الشمس قرحوا أيلة صلى الظهر دور كنت كان والعصر عصرك جميعا لما ثم ارتحل دينا وقولي
وعن معاذ رضي الله عنه قال وحوري خرجنا ونبحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دولانك تبوك ونرعني وفكان وحا يصلي الظهر والعصر الظهر كي عصر كنت كني جميعا دمانتود والمغرب والعشاء نوات كني جميعا دمانتود رواه مسلم يا ولي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وحلقوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا وحولي لا تقصر الصلاة كان يلوي يرتب لك حديث كان أنسي حديث كان معاذ رضي الله تعالى عنهما وحيت الماميان وحلو يقانا جمع مسألة الجمع بين الصلاتين أحكام السفر كلية هي شيء كقارهين وحكمدا لبدي الصلاة بين الجمعين كرتون ظهر يا عصر هي مغرب يا عشاء جمع سواء كصوب حيا لبا قيبود جمع تقديم waxa looga jeedaa labada salaadood tii horeysay waqtigeeda intii dambeysay loo soo raro taakhiirkuna waa taa cagsigeeda xadiiskan Anas marka riwaayada muttafaqun calayhi waxay sheegaysaa nabigu sallallahu alayhi wasallam hadii uu guuro iyadoo aan waqtigii duhurka la gaarin oo sida safarkii uu ku galo salaadii duhur dib buu dhigi jiray casarka marka la gaaro degi jiro wada tukan jiray waa jamcu taakhiirkii haddii uu salaad markay qorraxdu samada ka iilatay salaada duhur waqtigeedii la gaaro uu damca inuu safrana salaada duhur buu tukanay casarka ma jamcinaynin oo casarka ma soo raraynin jamcu taqdiim waxa weeyaan duhurku iska tukan jiray casarkana waqtigeedu tukan jiray waa riwaayada muttafaqun calayhiga riwaayada xaakim iyo riwaayada abu nu'aym isla xadiiskaasi waxay tilmaamayaan jamcu taqdiimna inuu sameey jiray oo soo rari jiray salaadii casaro uu la tukan jiray maqribkii xadiiskaasi saasoo sheegay marka wuxuu sheegay riwaayadkiisa marka la isku daro labadaba nabigu inuu sameeyay jamcu taqdiimna sameeyay jamcu ta'khiirna sameeyay xadiiska mucaadisaku muxuu tilmaamay nabigu sallallahu alayhi wasallam tabuk isagoo jooga uu jamciyay duhurkii iyo casarkiiba uu jamciyay مغربكي يعيشهنا وجمعيه marka kana waxa laga qaadanaya labada jamacba jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir waayo suurada labaduba way ku cadahay saadaradeed baadaba masalada culimadu isku khilaafeen waa inaga jamaahirtu waxay ku tageen labaduba inuu mashruuc yahay laakiin nimanka xanafiye la yiraahdaa way diideen jamciga wixii aan nusuk ku xidhnay أو مزدلفة يا عرفة أو عرفة محل سمي جمع تقديم بال سمي مزدلفنا جمع تأخير بال سمي ولأجل النصك بيليه أو يوعي كم إذا علماء التحديد كقضاء أريتاس وحي مشكل كتاي حنا في ذلك هو التزامين لكن وحي مشكل كتاي علماء السفر كحديثي سفر ك أيلو حويان هدي وسفر يهي مدد وين له هلايو 8 كيلومتر يديراد wax u dhigma halkan wala jamcinay iyagoo reer maka qofkii maka deganaa ee makreer maka aha de marka uu baxo Arafa uu baxo salaadii uu gaabinayo ama uu jamcinayo jamcintayda uu gaabinayo suurada noocaasa ده وحويان حنفية وحيلين أحكام تالك على سمينا ولأجل النسك ماها لأجل السفر مكرر مكمك هالكاوي سميك قالوا ذا كلام حي أورانا يعني هي يقول وحوي وين المسافة أنت على أكتاي هل كان ندي من المدي ذكروها وحوي النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة دي للسعودية وين لقابيه وأنا لجمعية مك واحد مقرس قول كعدم التحديد كونه صوابي يعني قول كلا ترى يسوي كلا قاضي أورانيا ما يجمع تقديمك أيان الله أقولين لكن جمع تأخير كوال أقوليه لكن مثلا راجع هذا واسدا علماء دي تري جمع جوا بنايا يبقى هذا ليس سي خلافي وحين عن الصورة ضل جمعنا يوم مركز السفر كله يقول احتراء تصالحان هل كانت كسفرتي أحابط كسعتها بميل فوق كم كيلومتر
kunka kilomitir de mar walba ma socotid mar waad nagtahay waxa laga yaabaa inaad 6 saacadood ama maalin iskaba nasataba inta aad nagtahay aad safarkii ku dhex jirin ma jamcinaysa mise ma jamcinaysid culimada qaarkood baa ku tagay in ida jadda sayru kaliya uu jamcinaya marka safarkii uu ku dhex jiro gaariga baa soconaya gaadiidkii baa soconaya xaaladda noocaas ma jira laakiin haddaad iska nagtahay salaad walba waqtigeedii baa tukanaysaa لكن قول كودو وقول ضعيف حديث كان معاد أينا دليل نبي مدد متبوك شوقي وقابيني تمدد ضلنا سفر كم تشري مكتان مثلا راجح الواسطة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان لوحي لا تقصر صلاتها قابلين في أقل وحكير من 4 برود أفر برود وحكير صلاتها قابلين من مكة إلى عسفان لقى قالوا رواه الدارقطني بإسناد ضعيف إسناد ضعيف بالقوري marka xadiisku waa xadiis aan saxay ma waa dhaif jiddan weey nin matruuk oo Abdul Wahhab ibn Mujahid ayaa ku jira hadalkii fuqahadu noo weeyay hadalkii Nabi Muhammad oo meeka wa sahih annahu mawquf weey kada akhrajahu ibn Khuzaimah xadiiska marka wuxuu nas ku ahaan lahaa qowlka ay ku tageen culimo badan oo ah afar burud inta laga gaarayo oo dhowr 8 kilomitir masaafo inta leh qofka u safraya ayuunba حكم كان قصري قادريا أما جمعيا أو مسافة أنت اللي يقدر مكي عصفان بيسوتشرت عصفان مكة واحد كجا بيجنت هاي وقوي كالبيت مركز كسر بحث وداد عادي جاي مكان لو جاب بحر مكة مدينة لو قص عادي حاجة وقوي لو بحر إيه صعطة إلا تقريبا سنة 6 كيلومتر ayaa loo tabeelo ku soo baxaya Cusfaan bidixu leexo xogaa 10 kilomitir kala soconaysa halkaas aad keenaysaa Cusfaan marka way isu tagaysaa 4 burud iyo masaafada ay Makay Cusfaan isu jiraan laakiin xadiisku waa dhaif waxaan Jaabir radiyallahu ta'ala anhu qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka Allah wuxuu khayr ummati ummadayda waxa ugu khayr badan alladina kuwi ida asaa'u markay dambi la yimaadaan istaghfaru ilaahi dambi dhaaf weydiista wa ida saafaru goortay safraana qasaru salada gaabiya wa aftaru سواء كان يسكافر أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وإسناد ضعيف في كوريا سنة حديث ضعيفة وهو في مرسل سعيد بن المسيب وأنا مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر وهو مختصر ومبتديه خبر كيس ومختصر في مرسل سعيد بن المسيب جار مجرور كاسره وكتعلقيا مبتدوه كتعلقيا أما واحد هذا وهو يسوي حديث كان في مرسل سعيد بن المسيب أو كائن في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي وهو مختصر متذكر الله اسكسو يعني قدره حديث كان ما كان دليل نقول لها أما فضل وشيء قالوا مركز سفران قصر قال لي ماذا قالوا لي القصر قال لا قلب دليل بويا قلنا لا قصر أفضل دليل بويا قلنا لا قصر ما يحكى لمتشر أنا دليل بو نقول كلام إن كاستوى حويد خير يدا ككلامين وخير بدين لك قاضي على كل هالحديث ما صحيح وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال وحده كانت بي وحي يقصون بواسير بان لها بواسير بينه نقانا بواسير وترى نقانا ويا وحنون كان دبرته كدعا أما على شيء دبرته ماشي يسكسو قاعدان يسكن نوعية كلا دول له بواسير تاسان لها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قويدي عن صلاة فقال وحي صليتك قائما حال كونك قائما أدو تاغن فإن لم تستطيع حتى تكري ويدا فقاعدا فضي بيسكغتك فإن لم تستطيع حتى تكري ويدا فعلى جنب لنا عضو شيفتك رواه البخاري باوري حديث كان وحده الماما يقفك مريض كاسد وتكنيو قفك مريض كاي كيفية مربى وأودي أيو تكنيا حديث كان لكن صدح بو شاغي horta istaa ku tukadaad kari weyda fadhi ku tukadaad fadhi ku tukan kari weyda dhinac u tuko hadaba haduu dhinac kari waayo bal ka warraba xasan taana ma awoodo dhinacna uma awoodo اختلف العلماء قاركود بايري انت هدو كري وايو صلاه way ka dhacaysaa لكن قولك هو ضعيف شيخ الإسلام ابن تيمية ما كنت waxay u ishaaraya waxay dad nas ku soo arooray ma haysid bal naska keenay ku soo arooray iimaan
ها؟ طيب لكن دليله كان النبي يقول لك سكون يستاجي فإن لم تستطع قاعدا فعلى جنب فإن لم تستطع على الجنب فإيمان حيقطع الله ده مستلقيا جنب واسكمد مستلقيا هي جنب واسكمد يعني عضو شيفان لوغا جيدا شيف كينا uu ku kari waayeba qawaacida guud oo laga qaadanaya نعم قواعد guud baa laga qaadanaya salaadu ma dhacdo inta aqligaagu joogo laakiin aqliga hadii khalal galo salaadu waa ka dhacaysa laakiin inta aqligu joogo sidaad u kari karto ayaad u tukanaysaa ولذلك dadka qaarkood waxa dhaca dadka waayeelka ay waliba markay xaruuraan xanuunkiisu aad u dheeraado xilligaas ka saada lagu dirqiyama anu waqtiyada qaarkood waxa laga yaabaa qofku inuu galo xaalado aanu xitaa de salaadii tukan karin dadka qaarkood baa yaada haloo laqimo waxa laga iga daba dheh Allahu akbar Allahu akbar qofku waxa laga yaabaa hadana intuu Allahu akbar ku yaado inuu baxaba aanu joogin haddana uu yaado maay haddana iga daba dheh Allahu akbar wax lagu diray ma qofka haduu kari waayo salaadii ama marba uu miirdoosoomayo ama aqligiisa khalal ku jiro salaadiba ma saaraba وعجل ها هذا هو يسكرنا ولا هو يسيسينيا إعانة ويبناته قف كادو كري واي ويسد ولا هو يسيسينيا وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال وحر عاد النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول صاب بغض مريض قف حنوسانيا فرآه حرك يصلي سوى تكني على وسادة بركن فرمى بها بركتي بكتورة وقال يصلي على الأرض وأدلك كتكو إن استطعت هدات كرته وإلا فأومي إشار إيماء إشار واجعل يل سجودك سجود هذا أخفض مثل هوسيسا من ركوعك ركوع هذا كهوسيسا رواه البيهقي وصحح أبو حاتم با وحوي صحيح يالي وقف جيسا وحديث نبي مرفوع معها لكن وقول جابر وكتغي وي هرنا وينو سمر حديث كني marka waxa la diidayaa hadii aad sujuudi kari weydo waad fadhidaa sujuudi baa kugu adag ama rukuucdi baa kugu adag dadka qaarkood baa laga yaabaa su'aalaha leeyahay barkin soo dhaweyso barkintan kor soo qaado iyada ku dul sujuud waa taratu lagu ma dirsan mas'ala halka hadaba ku jirta qof baa sujuuda awoodin laakiin rukuucdu awooda rukuucdu ma ka dhacaysaa marka miyuu ishaaraya rukuucdu dad badan bay ku dhacday dadka u sheega hadaba diinta dadka qaar baa waxa weeyaan lagu aan u soo laamayna ama wax la masjuudo laakiin rukuucda caadi buu rukuuci karaa kursigu iskaga tukanaya salaadii faralka ahayd la inta uu karayo waa inuu la yimaado hadaanu sujuudi karaynin sujuudu uu ishaaraya laakiin ma hadaan tankana ta kalena iska raaci sax ma inta lagu ogol yahay in baad ku joogsanaysaa وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يصلي كان متربعا حاله هي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم حاكمنا وصحيح يالي حديث كنا وين صوم ريوب تربعنا وين شرحنا لبض القعود صار لي صدف صدوي marka sidii kasta aad u tukataabo way ku banaan tahay fadhi markaad ku tukanayso ama sunnaha noqoto ama faral aad istaagi kari weyda ha noqdeen laakiin ya fiican sida ay Aisha radiyallahu ta'ala anha nabiga ka sheegtay inuu tarabbu fariisan jeeda marka laakiin tarabbu ma loo fariisanaya waa maqaamul qiyaami sujuud marka la gaaray ama la taxiyadsanayo sidii caadiga ku soo noqonaysa taa lagu tanabuha sujuud fadhi gaar ay leedahay laakiin tarabbu'ani wuxuu naa'ib ka yahay qiyaamkii aad kari weyday ama sunna aad oo tukanayaad fadhiga iskaga tukatay markaad maxallul qiyaamkii taagantay ba tarabbu fariisanaysa laakiin markaad sujuudayso ama bayna sajdatayn ama tashahhudkii labadii fadhiye la yaqaanay ama tawarruk aha ama iftiraashka aha ayaad la imanaysaa sawaadix ma halkaas baabku lagu joogay Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in